bal intaanan markaa su'aalaha kale oo badan oon ku hayaan oo gelin dadka cudurkan marka u horreeyay maqlayo ama uu ku cusub yahay ama aan qeexid run asal u haynin bal noo qeex muxuu yahay autism. cudurka autismka waxa weeyaan waa cudur waxaa la dhahaa neurodevelopmental disorder oo ah cudur ilmaha ama dadka badankood markay ilmo yihiin lagu ogaanayo markaana la soconaya qofka oo ilaa intuu ka weynaanayo intuu nool yahay badankiisa si noloshiisa u saameynayo weeye. marka waana cudur calaamado leh oo calaamado gaar ah oo cayiman oo la macneeyey oo markaa qofkii laga helayo weeye. marka cudurku laba calaamad baa tiir u ah. midka koowaad waxa weeyaan in ilmihii xagga xiriirka bulshada iyo ma aragtay ishaarada iyo in qof wejigiisa uu akhriyo wax ka fahmo in ilmihii ay ku yar tahay ama ay ka maqan tahay oo markaa inuu asxaab yeesho ama inuu ilmo da'diisa oo kale ay markaa kolba goor uu qof wax tusaale ahaan markii meelaha lagu ciyaarayo kale ilmuhu kolba ay maaragtay isbedelaan oo kale inay taa ay ku yar tahay ama ay ka maqan tahay. tiirka labaadna waxaa weeyaan ilmihii calaamado soo laalaabta iyo ficilo soo laalaabta iyo waxyaalo gaar ah oo ay aad xiiso u qabaan lagu arko. marka labadaas tiir baa ya asaas u ah oo ilmihii laga helayaa. inta badanna waqtiga la ogaanayo ama waqtiga maxaa yeelay dalada isutaga dhakhaatiirta carruurta oo kale American Academy of Pediatrics oo kale waxay dhakhaatiirta ilmaha daaweeye ay soo jeediyaan in ilmaha laga baaro cudurkaas markay 18 bilood iyo ama ilaa 24 bilood inta u dhaxaysa baaritaan hordhac ah